علمني الإسلام علمني الإسلام علمني الإسلام علمني الإسلام. الإسلام هو الإحسان من غير ذكر ونور الشمس والقمر وجعل الجنة ثوابا لمن شكر وجعل النار عقابا لمن كفر. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورهوي دتك ألا النبي رميو نففياشين يا أهلكين كبد بادية نار تاسولك شدد هنا لك حي دد. ورهوي أهل كاجا ننك أهل كيس حلوة ديوس ننك أهل كيس أن كفكر وديوس أهل كاجا بريتو وحبا لقاوي دينيا حاسكا أتقبت وحبا لقاوي دينيا قبل كل ألت وحبا لقاوي دينيا قبل أعطى الشيء وحبا لقاوي دينيا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نولي بوا راعي نولي بنوحي الراعية وحلقاوي ديدونا أديك ما أنت وحقول الشيء قبل وقاو قبل وحبا لقاوي دينتونا قبل الصوماليات يران تيد الظروف بدني صومرتي waxa ay soo martay maalin aan waxba la bari jirin waxa ay soo martay maalin ay ahayd gabadha Soomaaliyeed ee yar waxba aan tirsan jirin gabadha Soomaaliyeed noocaas ay ahayd maanta fursad ay heshay waxbarasho heshay maanta waxa u damqanaya ummad dhana u damqanaya maanta waxay kaga jirtaa dunida kaalin ma ogtahay gabadha ugu qurxoon dunida gabadha ugu xishoodka badan gabadha ugu fiican xataa carabta in ay tahay gabadha 8 jirka Soomaaliyeed ma la socotaa gabadha kaalinta leh maanta hooyo Soomaaliyeed inay ogolaato in social media ay ka soo hor muuqato oo intaas oo shacbiyad ay ka hor hadasho ma ahan mawdayri salmayri mustaqbalay rabtaa mawdayri mustaqbalay rabtaa yaan lagu abaabin in ay mujtamac dhan ka soo hor muuqato ay u shactarayso walaal shactarada wax weyn maaha balse waxa ka fiican gabadhu inay qiimo leedahay inay xishood leedahay dunida tartan geli karto mawdayri faca waxa uu akhrina ila daawo arsalnaaka illa mubashiran wa nadhira qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man gabadha waxay akhrinaysaa waa quraan gabadha waxay akhrinaysaa maanta dunida Soomaali gabadha Soomaaliyeed 8 jirka ee u matalaysaa waa noocaas waa lagu faanayaa aniga ma ahan ila dhageyso wadaadkan oo carabka ila dhageyso wadaadkan waxa uu ka hadlaya wax kale maaha waa gabadha yar ee Soomaalida ah dawasho wacan. هذه قرية في الصومال كل بنت فيها محجبة من أولهم إلى آخرهم الكبار الصغار حتى أنه أصبح لدينا تحدي في فريق العمل من يجد فتاة ولو صغيرة غير محجبة 15 سنة محجبة 10 سنوات محجبة 7 سنوات محجبة 5 محجبة 3 أيضا محجبة وكأن الأمهات يلدن البنت مع حجابها طقم. أنا أعلم أن هؤلاء البنات الحجاب في حقهن ليس وكان dunida noocaas kaalintaas aan ugu jirnaa gabadheena Soomaaliyeed waa gabar xijaab lagu barbaariyay gabadheena Soomaaliyeed waa gabar xishoonaysa waa gabar akhlaaq leh waa gabar aadaab leh waa gabar nooca lagu sugan balse maanta waxaan dareemaynaa boqolkiiba 80 way fiican yihiin gabdhaha Soomaaliyeed 8 jir ilaa 14 jir ka bilow kama hadlayo waxaan ka hadlayaa gabdhaha yaryar ee rabo mustaqbal inay sameystaan ku soo biiray dunida oo ifayo ayaga dhan quruxdooda iyo dhadhalaalkooda arkaysa yaan lagu dheelin yaan lagu cayaarin taageero ay u baahan yihiin maanta in loo dhoola cadeeyo in la tusiyo wanaaga in la tusiyo nolosha noocaas ay rabaan ee in lagu fiyus lagu raadsado ma ahan loo sabciyo hees loo qaado ma aha walaal mawdayri haloo naxo yaan lagu ciyaarin gabdhaha yaan sas loogu ciyaarin waxa hadda social media ka muuqdo waa laba gabdhood oo yar oo Soomaaliya salmayri iyo mawdayri waa waxa ay sameynayaan ayaga dambi looga qori maayo
balse kaalinta gabadha Soomaaliyeed ee 8 jirka ay ugu jirto kaalinta soo fiiri wax soo baar wax soo akhriso waayiga akhrinay quraanka waayiga codka macaan waayiga noocaasa laakiin gabdhahan maxay kaga duwan yihiin fikirkooda waa majaajilaysto wax kale maaha majaajilaysto bombila lira bombilada dunida bombilada telefishinka kartooniska laga soo daaya ayaa waxa weeyaan ay la mid yihiin sababtoo ah waxa ay noloshooda iyo shaqadooda ka dhigay in dadka qosliyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala qosolka tirada badan oo dhexdhexdaaba laguma keenin dunida markii laga dhigin bombiladaas camal yaa laga dhigin waa gabar Soomaaliyeed waa gabar qurxoon waa gabar wax weeyaan dunida maanta wax ka qaban karta waa gabar mustaqbal ifay u soo socda majaajilaysta iyo bombilanimo wax mataleyso war hooyada Soomaaliyeed waa hooyada noocaas gabadheeda abaabisa gabadheeda tarbiyaysa gabadha noocaas oo maanta waxa weeyaan dunida ku tartamayso quraan sharafay noo tahay waa inaan kala shaqeynaa had maanta waxaan ka hadlayo on dhahay labadaas magac on soo qaata ma aha labada magac inaan la dagaashanayo moodayari iyo waan fiirsadaa waan la socdaa balse nolol ka fiican raba qofka u damqanayo qof jecel laakiin qofka inta like u saara ku sabcinaya comment ku bixina keep going ku dhahaya oo hadana birita meesha soo istaagi doon soo fiiri majaajilayaashii Soomaaliyeed xagee ku dambeeyeen majaajilays gabdhihi ah intay ku dambeeyeen maanta way joogaan noloshu waxay u baahan tahay jiil dhan oo isla socda noloshu waxay u baahan tahay asxaab kula socota noloshu waxay u baahan tahay asxaab kuwaanisa noloshu waxay u baahan tahay asxaab oo wanaagsan oo aad ku soo biirto indhay ku noqda waxa soo dhan maanta waxa weeyaan waxa looga baahan yahay gabadha 8 jirka Soomaaliyeed inaan ku taageerno wadada saxda door albaaba furan door wajiya furan halka wajiyo majaajilaystinimada iyo gabdhaha Soomaaliyeed lagu dhameen maadsan علمني الإسلام علمني الإسلام علمني الإسلام علمني الإسلام الإسلام هو الإحسان